عيشانتا أفر سنة عيشان حوالي دول قاتل قبل ودول قاتل gabadhu waa weyn midda kale qofku inuu nafistaa roon daahiro daa aniga goorka lay furay ma dhaweyn xilliga koroonaha ayuu warqad furiin ii soo diray maqaayad publica ugu furay qadiijaha gar oo eedadiina ayuu xitaa marqaati iiga dhigay marqaati ay leedahay aniga cunuga inuu dhintay waad og tahay xasan inuu kala tagayne daaro sheekada naga xir gabadha private alla midda kale qofku waa qof oo naafa ah wey qof naafa wey daaro lugayga ma aragtay horta lugayga ma aragtay ila adeer waa inta qoori ila adeer bes waraale haywiya saarana wallahi oo bilaa tala hadaana tuuri lahay haywiya saarana dinta la iga saaro ee gabadhaan intaana luqluq la gelinin niyo lacagta hala waa gabadha naadeerteena wiilkuna waa naadeerkeen waaye oo arrin hoose waaye annagaa la wareegayna waxay ka hadlayso 3,000 waxaas loo maqlayna waxaana ku filanahay waaye waana mahadsan tahay laba arrin waxaan rabaa gabadha maadaama ay noo timid horta xawaadu waxaan rabaa inaad iga xalisaan hadda dhiig joojin la siiyo arrin dambana intaad telefoonada kala qaataan telefoonkeeda yeeriso saa telefoonkeeda ma taqaaniine maamadu way hadlaysaa laakiin muddo ku jirtaa codkeeda lama maqli maa maxaa tiri maam cabdirasaaq horta waa ku maqli haayaa aniga goorka lay furay ma dhaweyn xilliga koroonaha ayuu warqad furiin ii soo diray maqaayad publica ugu furay qadiijaha gar oo eedadiina ayuu xitaa marqaati iiga dhigay marqaati ay leedahay aniga cunuga inuu dhintay waad og tahay xasan inuu kala tagayne daaro sheekada naga xir gabadha private alla aadayna annaga xalinayna ugaas beelo mood gal ويا صعبتها صدوا هذا إذا الهانتي بود السلام ليا دار على السو نكان اللي يرادو waxa uu horta yaana TikTok ka wado waa wax dhibaato ku ah dhaqanka suuban ee ummadda Soomaaliyeed ee leedahay runtii ninkan waa nin la soo adeegsaday ninkan aad u jeedaan hawl ayuu hayaa dad boon u adeegaya ninkan waxaana loo soo diray ceebaha iyo foolxumada ummadda Soomaaliyeed inuu habeen kastaba uu soo qaato oo dad wax ma garata ah ya uu soo saarto boggiisa TikTok-ga si live ah halkaasna oo wareys uga qaado wuxuu sheegay maxkamad wax ku sheeg oo ku sheegay waxa la yiraahdo maxkamad inay halkaas uga furan tahay waxaanu u furtay waa dumarka Soomaaliyeed oo kaliya dumarkana dhibaato iyo duruufo ayaa iska haysto sidaas ayay ugu imaanayaan waxaa la shaqeeyo koox gangis ah oo caado qaatayaal ah oo u soo aruuriyo dadka doonayo inay halkaas yimaadaan oo wareysiga looga qaado hadba qofka ka sii daruufaysan ama ka dhibaato badan ayay dadkani raadiyaan oo qarashaad ku bixiyaan waa barnaamij marka lagu la dirirayo dhaqankii Soomaaliyeed oo la doonayo ceebaha dadka ummadda Soomaaliyeed in meediyaha afraadka ka saac la keeno haddaba marka shaqadan oo ninkani hayo shaqo yar ma aha Soomaaliyeed dhagaha fura shaqada oo ninkani wado shaqo yar ma aha waa shaqo weyn oo loo soo diray oo loo soo adeegsaday oo la yiri suurad xumay ummadda Soomaaliyeed dhaqankooda waxaa lala dirirayaa dhaqankii wanaagsanaay ee Soomaalida waxaa lala dirirayaa hablaheennii wanaagsanaay ee dhaqanka wanaagsanaay lahay ayaa lala dirirayaa ceebahoodii ayaa banaanka la keenaya waxaa lala dirirayaa raggeennii wanaagsanaay dhaqankoodii ayagana ceebahoodii ayaa la soo fafagaya oo banaanka la keenaya haddaba daahir maxaa ugu jiro howlahan haddaysan wax ugu jirin habeen kasta uma soo fariisteen haddaysan meeshaasi dana dhaqaale ila dhaqaalo uu yacni uusan ku haysan meeshaan habeen kasta intuu soo fariisto qof maama oo yacni oo masaakiin ah oo yacni iska dhiban halkaan ma soo istaajiyeen xaladan ayaa ugu dambeysay barnaamijkan hadda gabadhaan aad arkaysaan waa gabar xawaallo cali madaxweynaha oo daaro cali oo nuur sabatar ah oo naafa ah waxay sheegtay in wiil la yiraahdo xasan geed qorow oo guursaday hadda ka hor boosna ay u gaday tahriibo jarmalka galay ka bacdina ka goostay xilligii koronahana u soo diray warqadeedii furunka ahayd
ayadoo markaa dacwasho ah oo sheegayso in lacag 3,800 oo gurigii booskii nus booskii ay ka bixisay iyo 200 oo meherkeedii ka dhinay 4,000 ayaan u baahanahay ayay tiri meeshii waxaa loo yeeray xasan geed qorow walaalkiis ninkii yiraahdo taliye kaashay oo cabdirasaaq geed qorow la yiraahdo meeshii la soo saaray wuxuu yiri arrintan aniga waxba kama ogi arrintan ma fiicneen in public la keeno naaga meesha u fadhiyo u durbaantumayo oo raggii xagxaganayo oo barnaamijkaana wax ka wadaan fiirsha wuxuu wataa dhowr naagood ayuu wataa ninkan habeen kasta u saaran yihiin bal eega habeen kasta u saaran yihiin soo mid leeyahay ugu horeyso dadka ay u kala shaandeysaa u kala xaraastaa waa loo soo qabtaa ma boqofaa loo soo qabtaa loo soo saaraa meesha marka taliikaashay iyo nin la yiraahdo Caraale iyo nin kaleento ayaa meeshii soo qabsado soo koray oo arrintan anaga noo daay arrintan arrin family way arrin hoos weeye anaga galeeno anaga gabadha xalisanayno waa meesha noo wada jiyay yiraahdeen meesha naaga ku jiray oo inay xawaadla ahaayeen qaarkood u meelna kuwin hiiraan mid ugu qorneed baaba wiilashii afka soo goosatay waa kuwa barnaamijka wax ka wada oo ninkan wax la wada weyn naagaha arkaysaan qeylinayo wiilashii waa ay yaabeen waxay yiraahdeen waraali ahaada gabdhow arrintan arrin public in la keena yani ku habooneed ma ahayn waxaan anaga xalisanayno naga raali ahaada leeyahay meeshii wuxuu ku soo rogay marka asaga $300 dhig joojin ah waa in si degdeg ah loogu tuuraa wiil gabadha 300 loo diray gabadha marka sidii ay ku dirtay alloora marka ninkan habeen kastaba dad baa loo keenaa habeen kastaba dad baa u shaqeeyo naaga u shaqeeyo bastrin ah oo yani fadara oo yani dhaqankii Soomaaliyeed ka tagay doonayo inay ummadda dhan wada fadareeyaan oo ay wada haleeyaan ayay ka shaqeynayaan naagahaasi ayagaas oo adeego marba qof u keenayso waxa cajiib wuxuu yiri sidee maxkamadeedii kugu soo gaartay ayuu yiri maadaama halkaas baldoona aad joogto waxay tiri maraha bulshada ayaan ka arkay waxa ay maxkamadda fiican tahay dhabmiya waxa laga hadlay ha la yiri gabar baa igu ka xirto gabar baa agtahay inuu tiri anaad yani gabadhan ii timid oo maadaama aan xogaa aan ku roonaa meelahan yani aaladahan isticmaalo social media waxay tiri igu xiriir ninkaas sidii aan kugu soo xiriirso asaga markii waa ku qoslaya waa la dhacsan yahaba mana oga inuu ka shaqeynayo fadeexad iyo ceeb iyo dhibaato ummadda Soomaaliyeed inuu ka shaqeynayo asaga ma dareensano wuxuu u heystaa inuu wax wanaaga uu ka shaqeynayo waxa igala sii daran qofka markii meesha uu soo istaago soo fariisto uu dhaarinaya kugu wallaahi ya kugu billaahi ya kugu tallaahi ya ayuu leeyahay wuxuu iska dhaadhiciyay inuu maxkamad islaami ah uu fadhiyo ninkan faasidka arkaysan ninkaan marka wax ka qabasho u baahan yahay dawladda Soomaaliya ninkaan haddii wax ka qaban waxaan wax ka foolxun iyo wax ka xun ayaa imaanayo ummadda Soomaaliyeed waa in meel lagu soo wada jeestaa ninkaan dhaqan dooris ka wado reer galbeedka soo adeegsadeen oo kaniisadaha laga soo diray xaqiiqatan waxa la ii sheegay in kaniisadaha reer galbeedka ay ninkaan soo direen una shaqeeyay dhaqaalahana ay bixiyaan lacagahan la diray arkaysaan waxaana tutura arkaysaan been way waxba ka jiraan way lacagahaas waa la baxshay dadka ayuu uga qaybiyaa oo yiraahdo ka bacdina ku soo saacido meeshaas waxaan waa barnaamij marka laga soo shaqeeyay muddo laga shaqeynay ayuu ahay marka waxaan ummadda Soomaaliyeed marka u sheegaynaa ninkaan meel loogu soo wada jeesto ummadana laga qabto dhaqan dooris ayuu wadaa dhaqankii Soomaaliyeed ayuu ku ciyaarayaa bulshadii ayuu kala geynayaa waxaan hore loo arag ayuu ninkaan keenay hablo afraad ka sacqeynayo ceebahoodii fulxumo iyo balaaya iyo qoyskoodii iyo nimay kala tagaan ee nin qaba intaba yani ka hadlayo ka yani ka sheekeynayo ayuu ninkaan habeen kasta meesha u fadhiyaa ummadda Soomaaliyeed waxa leenahay ninkaan waa in meel loogu soo wada jeestaa xaqiiqatan dhaqan dooris weeye waxa uu wado waa dhaqan dooris waa wallaahi waa billaahi waa tallaahi waa dhaqan dooris dhaqankeeni wanaagsanaay ee suubanaay ya ayuu la dirirayaa ninkaan xaqiiqatan marka waxa loo baahan yahay ninkaan in wax laga qabto ummadda Soomaaliyeedna sida aniga aan u arkay in loo wada arko dad baa u riyaaqayo mar alla markuu soo gal oo kun oo qofood ayaa isugu imaanaysa meesha wuxuuna wataa group yar oo naaga u badan oo u adeego oo u raadiyo saas u raadiyo dhaqaale ku bixiyo dadka duruufeysan ama dadka dhibanaha la qoysaskoodii iyo waxa soo kala dhaxmaray sidaas ayaa loo raadiyay gabadha miskiinta hadda naafada ah 9 sano ayay ninkaasi yani ka maqnaayo baadi goobaysay waa ciishootay waa ay xanaaqday meelay ku nafista ay raadinaysay marka dadkaas ayuu ka faa'iideystaa daahir dadka noocaas
oo cabursan oo yacni u baahan in maanta yani wax loo qabto kuwaas ayuu jaanis ka helay kuwaas ayuu yacni ka faa'iidaystaa kuwaa weeyaan noocaas weeyaan wuxuu maalin kasta iyo habeen kasta oo tiktoka uu la dhex fadhiyo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ninkaan ha la iska qabto ninkaan ha la iska qabto dhaqan dooris ayuu wadaa xaqiiqatan waxa uu wado waa dhaqan dooris haddii aan laga horteginna reero badan oo hadda dhisan ayuu kardirayaa baabi'inayaa yaa idinku dhaarshay ninka usoo xuub siibtay usoo dhar dhigtay habeen kasta fadeexad iyo ceeb ya inuu ka shaqeeya ka warrama ma wax u dhimanaa jira ninkaan wax dhowranaya ma laha marka waxaan leedahay ninkaan tilaabo in laga qaado waayo ciddii tilaabo ka qaadi karto ku habboon ya ninkaan waa in tilaabo laga qaadaa ciyaar wada islaamaya muuqaalkaana gaarsiiya u geeya qoralkiisa ugu dira gaarsiiya waa nin shahaado zuur ah waa nin alle iyo rasuul ka furtay waa nin dhaqankii iyo diintii intaba ku ciyaaraya weeye gaarsiiya ilma adeeryaal oo meel kastoo yacni oo ku jiro ugu geliya daaqadaha oo gasho wada islaamaya dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu